waxaa kulan muhiim iskugu yimaaday xafiiska jamciyadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya gobolka Faafan guddiga barnaamijka gobol xaad ee gobolka Faafan iyo guddiga qabanqaabada qabashada sanad guurida 36 ee ka soo wareegtay dhalashada ururka Wanlefe kulankan ay ka soo qayb galeen ururada bulshada ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa ugu horreynba waxa khudbad waafi oo dhan walba taabanaysa ka soo jeediyay gudoomiye ku-xigeenka jamciyadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya halgama Daahir Maxamed Cali waxaana gudoomiye ku-xigeenka hadaladiisii kamid ahaa وأنا تصدق في محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب لما قيبها يحمنا ككوبيه نفرد بالشدة جوال كفافا لما أنت هل كان سكوي يمد هذه أدبان نكون هاد علينا هنا وأنا إذا شرف هنا صوت عن سيدة أولادنا هنا وحاوي وحنهبنا ujeedada ka dambaysa imaatinkiina halkan in ay tahay wax ku qotama xaqiiq aan qarsoonayn oo ah inaad tihiin dad u taagan maalmarinta waajibka ku aadan si ay u helaan xuquuqda iyagu ay leeyihiin ee dadkooda iyo dalkooda ay ka sugayaan in ay u soo hooyaan guulka madambaysa oo ay ku noolaato ummadda annagu aan ka dhalannay aan la wada soconnaa inay soo martay halgan aad iyo aad u dheer oo ay ka soo martay dhibaato aad iyo aad u badan dad badan lagu waayay dad badan ay ku dhaawacmeen runtii aad iyo aad baan waxaan idin leenahay mar kale waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin intaa markaan ka gudbo waxaa jirta waagii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi markuu dhintay iyo dad fara badan ridoobeen oo diinta ka noqdeen marka wufuud baa la kala dirayoo nin la dhihi jiray Suhayl ibn Camar oo dadkii Qurayshta ahaa ama sanaadiinta Quraysh la dhihi jiray ka mid ahaa ama dadka odayaasha oo Quraysh oo soo islaamay فتح مكة مكة لا فرتقد يا ميكروفون قبصة أضو ميكروفون حلي يا مجنين تودك ورستاق وحير والله لا يبلغن هذا الدين أقصى المشرق والمغربي إلهي بن كنت أرتي الدين كان وقارد دونا برء يا قلبي أنت وقارد دونا وحنا أنت بسالة وسوق هذا يا فلنا هانتي حلقا كان مال والبنا وقاري ونقارد دونا أنت سلمان قولنا ويكسوه يندونتا geedi socodka ku aadan guusha iyada ayaa dadka hawsha gacanta ku haya iyo dadka ka agdhowha qof la arka kaalinta uu ku yeesho xumaan iyo wanaag unba taariikhda geli doonto mustaqbalka fog wax laga weydiin doona runaantii waxaan wax aad iyo aad nasiib darro u ah adiga oo maanta nool oo awood u leh waqtina u haysta inaad taariikh wanaagsan qorto haddaad taariikh xun qorto waxay la factirsanaysaa ilmahaada adiga dhashay sababta waxaad noqonaysaa kuwii ilmahaada waxay noqonayaan kuwii aabbahood u xumaa ilmahaada wuxuu noqonayaa kuwii hooyadood xumeyd buu ilmahaada noqonayaa kabtankaa ka xirmaya bulshada ay la nool yihiinna waxay ka dhex noqon doonaan dad aanan qiimo iyo macno midna samaynaynin si marka carruurta innaga teenna su-aasha mustaqbalka inooga imaan doonto aan uga badbaadno sharaf xumo inay noo xambaarayaan oo annaga markaan dhimana kadib aysan shalayto naga daba keenin aan uga badbaadno qof la arko naga mida waxaa waajib ku ah in uu qadiyadan iyada ah maanta meesha ay marayso uu meel adag ka istaago cudud iyo caqli iyo caraf intaba waxaan xasuustaa haddii aan dib u noqdo dagaalkii birqoday ugu horreeyay jabhadda gashay markuu dhacay maalinkii labaad markii dagaalka lagu jiray maalinkii koowaad markii dagaalka lagu jiray maalinkii labaad sunnimad baa waxaa la isweydiiyey berri ciidanka dagaalka ka bixi doona maxaan siin doonaa ilaahay baan ku dhaartay inaan been idiin sheegin saacadan oo kale aan hawl qaybsanay si aan berri ciidanka cambuulo ugu helno markaas allah naxariistay maxamed siraad walaal meel loo diray anna meel baa la ii diray axmed nuur samadana meel baa loo diray nin la dhihi jiray axmed siraadna meel baa loo diray habeenkii dambe waxaan isu keenay xoogaa cambuulo ah oo suurtagelisay inay laba maalmood reerka ay ciidanka ay cambuulo ka dhigtaan oo karsadaan wixii maanta wixii heerkaa laga soo maray maanta meesha uu maraya waad la socotaan awoodiis intay gaarsiisan tahayna waad la socotaan
dadkiisa tirada ay gaareenna waa la socotaan laakiin maxaa taagan hadda shalay markaan bannaanka joognay waxaan ahayn dad awoodooda iyo kartidooda ay u saamaxayso inay iyagu dadka iska xigaan inay iyagu isku tashadaan inay iyagu isla tashadaan masaalixdoodana ay noqoto ka go-aan gaaristeeda mid ayaga gacanta ugu jirta laakiin hadda waan soo guurnay dadkii aan la halgamaynay yaan soo dhex degnay duruuftii waa isbedelaysaa marka wax fara badan baa meesha ka leexanaya dad fara badan baa laga yaabaa inay wanaaggii xumaan u bedelaan dad fara badan oo wanaagga markii hore xogaalka ahayna waxaa laga yaabaa inay ku soo biiraan taa marka waxaa ka markhaati kacaysa majraha taariikhda iyo socodkeeda ka markhaati kacaysa taa markaan intaa kaga gudbo waxaan hubaa haddii ilaahay yidhaahdo dadkani waa xaqlayaal waana laga gardaran yahay dulmi badanna wuu ku dhacay laga soo bilaabo minilig ilaa iyo lagu keeno dowladdii u dambaysay xasuuqii dadkeena loo geystay waan ogsoonahay xaq si caadi ah loo doortay si caadi ahna markii ugu dambaysay xilka uga tagan waxaan marka idinkugu soo gabagabaynahay hadalka guusha aan la raadinayna dalkeenna iyo dadkeenna waxay ku xiran tahay inta ilaahay ka sokaysa sida annaga u dhaqanno dhaqan aan la imaano jahannimo aan la imaano aragti caafimaad qabta aan la imaano wax bixin aan la imaano waad mahadsantihin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu